وعنا wanaagsan saaxiibada inagu xiran Maamuus Media Production ayaad nagala socotaan subscribe saar channelkan haddii aad nagu cusub tahay oo halkan imika aad ku soo biirtay sidoo kale like gare muuqaalkan iyo muuqaalada halkan aan idinku soo gudbino aad baan idinkaga mahadcelinaynaa dhiirigelinaya noo tahay in mar waliba dadweynaha aynu imika halkan si toos ah fursad ugu helno inaan kula wadaagno muuqaalada ku saabsan arrimaha bulshada Soomaaliyeed dhacdooyinka kala duwan ee bulshada dhexdeeda ka taagan muuqaalka maanta waxaan ku eegi doonaa Rasmi Rais fanaanada caanka imika fadhigeedu yahay magaalada Jigjiga ee cariga dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya muddooyinka ugu dambeeyay baraha bulshada waxooga nafis ay dareemaysay oo social media kuma aysan badeen laakiin saacadii ugu dambeeyay waxa si aad la iskula dhexmarayay isla markaana aad u qabsaday barta TikTok ay video ay soo dhigtay oo ay ku muujinaysay uurkeeda iyo nolosheeda cusub ee gaarka waxay Rasmi Rais dadweynaha la wadaagaysay sawirro iyo video kala duwan oo ay iska soo qaaday taasi oo ay dadweynaha ugu soo bandhigaysay uurka ay leedahay iyo nolosheeda imika baraaraha ay ku jirto waxa ay dadweynaha ka dalbanaysa inay usoo duceeyaan isla mar ahaantaana ay ilaahay u fududeeyo kuna garab istaago uurka maadaama xilli aad markaasi marxalad culus ay tahay imika dadweynahan ay ka doonayso in ay u marxabeeyaan una duceeyaan ishana ay ka saaraan Rasmi Rais ayaa muddooyinka ugu dambeeyay social media aan sidaas ugu badnayn waxaana si aad ah hakad ay ugu jirtay siiba muuqaaladeeda oo aan ku badnayn baraha bulshada dad badan oo saacadii ugu dambeeyay si aad waxa uga weydiinaya isbedelkan ku yimid nolosheeda waxaana dadka intooda badan ay ku bogaadinayaan in ay qarsato oo noloshaasi qaaska siiba uurka ay soo bandhigtay mar kale Rasmi Rais waxaad moodaa in muddooyinka ugu dambeeyay ay ahayd haweeney marwo dhowrsan oo aad markaasi social media waqtiyo badan ka maqneed isla markaana aan ku badnayn Rasmi Rais waxay kala tageen Farxaan hase yeeshee dhawaan waxay isguursadeen shakhsi kale oo isna ka soo jeeda gobolka DDSI ama dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya magaalada Jigjiga ayay ku aqal gashay halkaas ay ku sugneed aroos cajiib ah ayaa loo dhigay waxaana arooskeeda ka soo qayb galay fanaaniin kala gedsan oo ka soo heesay hase yeeshee ugu dambeyn arooskaasi miro dhalka noqday dhawaanahana waxa ay soo gudbinaysay muuqaalo ka kooban oo dadweynaha ay ugu jawaabayso kuwaas oo intooda badan wax ka weydiinaya halka ay wax u marayaan nolosheeda waxaana ay ku ammaanaysay saygeeda oo ay tiri waa nin afgaaban oo wanaagsan oo aan u jawaabaynin qaar ka mid ah dadka fariimaha iyo sidoo kale jawaabaha qaldan ka bixiya iyaga amaba dhaliil u jeedinaya Rasmi Rais ayaa saacadii ugu dambeeyay waxa ay dadweynaha la wadaagaysay gaar ahaan dadka barteeda TikTok ku xidhan Twitter TikTok iyo sidoo kale Instagram-ka ee faniskeeda ah ay u soo bandhigtay uurkeeda xilligan imika ay ku jirto ee uurka ay u tahay sayga cusub ee ay guursatay nolosheedana ay ku faraxsan tahay Rasmi Rais waa fanaanad ku sugneed magaalada Nairobi ee dalka Kenya balse muddooyinka ugu dambeeyay waxa ay u jihaysatay dhanka iyo Itoobiya dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Jigjiga ayuu ku sugneed muddo aad u fog waxay tiri Jigjiga cidna igama xigto waa hooygayga waa magaaladeeda waa deegaan asal ahaan aan u dhashay oo aan doonayo in aan muddo aad u badan ku sugnaado dhawaan ay dadku wax ka weydiiyeen nolosheeda siiba ganacsiga ay ku howlaneed iyo sidoo kale dukaamada ay lahayd iyo waxyaabihii isqurxinta iyadoo ay iibin jirtay balse waxay sheegtay in arrin caafimaad awgeed ay iyadu hakad u gelisay ganacsigaasi imika maadaama ay tahay marwo sidoo kalena ay xaamilo tahay dhawaanna ay doonayso in Allah subxaanahu wa tacaala kala keeno oo ay umusho haddii alla ugu gallado caafimaad iyo sidoo kale nimcadiisa uurkaasi ilaahay u fududeeyo haddaba dadka ayaa u marxabeynayay Rasmi Rais isla mar ahaantaana intooda badan waxay u reejinayeen khayr barwaaqo iyo sidoo kale bashbash waxaana ay u muujinayeen sida ay ugu faraxsan yihiin halka ay wax u marayaan Rasmi Rais oo nolosheeda aad ugu qanacsan ayaa cambaareen ee dhaliil la kulmi jirtay muddo aad u fog siiba ka gadaal marka khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay iyada iyo sidoo kale Farxaan Rasmi Rais ayaa imika waxa ay sheegtay in xaaladdu ay tahay mid aad u wanaagsan isla mar ahaantaana hooyo ay isku diyaarinayso imikana dhawaan ay noqon doonto hooyo canug cusub ay doonayso in dunida ay kusoo dhaweyso ilaahay haddii uu ku irsaaqo awlaaduna ay yihiin waxyaabaha wanaagsan ee la doogsado nimcooyinka alla subxaanahu wa tacaala addoomihiisa uu ku gallado waxaana ay sheegtay in imika nolosha hooyanimada ay isu diyaarinayso dad ayay ku maadeysanayay qaarkoodna waxa ay si aada ay iyadu ugu dhaliilayeen sawirada iyo fiidiyoyada ay soo gudbisay ee ku aadan uurkaasi ay imika iyadu ay ku jirto iyaguna uga digay in ay nolosha private-ka
aynan baraha bulshada kusoo gudbin maadaama ay jirto il xasad iyo il aan wanaagsaneen ama dad iyagu aan markaasi dooneynin dadyooga kale wanaagooda iyo horumarkooda. hase yeeshee haddana waxa ay rasmi rais dadweynaha ka codsanaysa in ay usoo duceeyaan si alle subxaanahu watacaala ugu fududeeyo uurkeeda, isla mar ahaantana si dhib yaroo fudud ay alla uu ku kala keeno. inaguna halkan waxaanu ka leenahay alla ha ku fududeeyo. waxaanu rajeyneynaa in owlaad caafimaad qabto wanaagsan alla subxaanahu watacaala u kaasoo saari.